sheekha wada garanaysaa sheekh Mustafa sheekh baa iga sheekeynayay ay saaxiibo ahaayeen muddo soo wada joogay Norway ayaa wuxuu iga warramayaa sheekha nolol maalmeedkiisa wuxuu ku leeyahay sheekha ma arkaysid isagoo meel fadhiya oo aan kitaab gacanta ku haysan bal inta badan sheekhu wuxuu sameeyaa ama kutub buu dhigaysanaya at the same time haddana dhigaa wax ugu jira si uu yani ka faa'iideysanayo waqtigiisa wuxuu iga warramayay okiyaalaha sababta uu xidhay dowladdii siyaad baraa xidhay sheekha xabsi buu ku jiray nalka isagu fisikisku aad u yaqaan sheekha fisikiska iyo xisaabta aad buu ugu dheereeyaa waa meelaha laga aqoonin sheekha aanu jeclayn inuu ka warramo wuxuu yidhi nimankii ilaalinayay xabsiga ayuu wuxuu u dirsaday fiilooyin iyo wax si uu uga dhex samaysto xabsiga nada uga dhex samaysto uu wax ku akhristo marka waa sheekha aad garanaysaan dee maanta markaad muxaadaradiisa aad degeysanaysaan aad garanaysaan yani aqoontiisu siday u ballaaran tahay inuu wax walba ka warrami karo